asaga saan waa yes wallahi been idima sheegaaye sidaan timaha intaana qayb yar ku hartay qaybtaan inta ku hartay marka meeshaan adiga oo ku marayso xaaladan ku jiro haddaad niyo jabtay bal ka waran aad tiraad baasi isku fasax macnaha waxa waaye assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa in salaam aniga muusa meeshaan nagala socotaana waa kulan la bidaar caawiya dhammaan gaashaan buurtargeeda mar waa mahadsantiin si sharafta la isku caawisaan anigana aad i caawisaan maasha allah marka insha allah maanta waxaa idin leeyahay maanta waxaa noo wadaa natiijo qurux badan maasha allah waa natiijo ku dayasho mudan waa dadaal miiran alxamdulillah allah u barakeeyo waa qof kaa dadaal badan naga dadaal badan marka dadka naga dadaal badan markaan dhahay dadka qaybtood waa la socda qaybtood oo aniga aan ku jiro oo dadaalkoodu yaraaday dadkaas waa marka insha allah dadka dadaalka badan ma aha laakiin inta dadaalka yar ayuu hormuud u yahay oo aniga aan ku jiro maasha allah waa natiijo qurux badan tan waxa waaye war marabto waxa waa itusi tabsiya allah laabtan waa cadeen rasmi ah waa cadeen rasmi ah marka war badan oo baahna la socda walaalkeen meeshaan oo go'day iyo qaybtaan war good morning iyo goodbye meel saaran faanti meel u saaran maasha allah marka waa ugu dadaalay muddada ku dadaalnay insha allah intaan miya maya waa 3 bilood insha allah 3 bilood ayuu natiijo qurux badan ku gaar welina wuu sii wadaa marka wuu mahadsan yahay walaalkeen allah garab galaan leeyahay allah garab galo ugu dadaalay insha allah waxaan jeclahay dhalinyarta la socda 17 ilaa 25 sano jir fadlan iska ilaali waxyaabaha mustaqbalka dhow ama midka fog madaxaaga baabi'in doono marna waxaan insha allah kula talinayaa dhalinyartaas koofida kula degdegay madaxooda ayagoo mataqaanaa timahooda u fiicnaaday iska ilaaliya koofida haddana madaxa kula ordisan adiga aad soo kabsaday koofi madaxa kula ordina anigana dee maanta waxaan kaloo noo wadaa aan idiin sheegi doonaa la socda akhyaaray midaan way dhammaanaysaa ma fahamte soo ma jeedaan midaan way dhammaanaysaa marka waxaan rabaa insha allah midaan cusub tan waa mid cusub weli ma furin tan waa teeni hadda oo dhaladeeni waa tana way dhammaanaysaa marka insha allah dee biri insha allah waa furaya tan cusub birita waa furaya insha allah hadduu ilaahay nafta nagu siimo tan cusub birita waa furaya okay laakiin la socda xabadan haddii mataqaanaa markaas warcad keeni weydo tan dhaqsiga ku dhamaatay faantay bisha maanta waxa waaye 13 bise 14 waa bisha maanta 14 waaye 14 ay ku dhamaatay marka waxay ku dhamaatay wallahi muddo yar gaaban ay ku dhamaatay muddo aad u gaaban ay ku dhamaatay dib male almuhiim inta la agtaay inta ku dhamaatay waa isleegihiin waa okay way laakiin taya laga rabaa insha allah xabadan kale aan ku dareynaa xabadan kale dee taya soo saari wada insha allah markaas waa ka tashanaynaa plan B noo qorsheysnaa oo qorshaha qaaska ahaa taas waa lagu mintidi doonaa taas waa ku mintidi doonaa war cadaan ka keeni doonaa muddo ayaan culays ka saari doonaa sababtoo ah waa muhiim inaan warcad ka keeno taas waayahay marka maanta insha allah waxaa noo wada ayaan gudaha u gali doonaa waxaa noo wada iyo webiga yaa weyn allah tan waxa waaye maasha allah natiijadan hey war ma rabta natiijadan bal sawirkan ila fiiriya qaybtan hore dadka meelahan ka cawanaya ila fiiriya aniga ku jiro aniga sida ahawa aniga meeshaas way gooday waliba hadda intaana ku sii darsoontay dhexdaana ku sii darsoontay oo hadda sii khafiiftay asaga saan waa yes wallahi been idima sheegaaye sidaan timaha intaana qayb yar ku hartay qaybtaan inta ku hartay intaan kale waa dhamaatay dhexdaan waa sii go'day saa timaha inta ku yaalaan si ugu yaalaan waayay marka maasha allah sawirkaas hadda aad u jeedaan sida timaha ahaayeen aniga laakiin saaba xogaa inta waa u buuxday aniga inta xataa dhexdaas waa ay khafiiftay laakiin saga goodbye oo ku jirto la socdo waa sax waa iga sii daran yahay weli inta ku jirtaa laakiin dhexdaas waa inta dhexda u buuxdaa qaybta gadaal ayaa insha allah haddana waxa waaye dabacsan laakiin waa minted libaax waaye waa soo ragaal celiyay wuxuu yiri weerarkan waa lagu qaaday anuu hurdo ayaa lagu gaaday ma soconayso dhahay waa wax isbedel aad weyn ayuu suubiyay maasha allah marka meeshaan adiga oo ku marayso xaaladan ku jiro haddaad niyo jabtay bal ka waran aad tiraad baasi isku fasax macnaha waxa waaye waxba kama qaban karo الله أروريو وحن سوقا تين إن صوب بيرتو شاكوين كله وحياباس أديسكر أديس بالكور هذيك مركا حال دام سوقن تاي ما لو بهنا وحلو بهنا سيد ويل كان وكلي أصحاب تاني وكله إنا تراد مايا وحماها وحاني وحكا بدن أيان قبن كرا ماشان إيميل كدير أيان إيمان كرا دال كفي عن أيان كين كرا أوكي وما شاء الله وانرون قفك هدود دالو منطقنا isku day uu suubiyo wax uu keeni karaa marka isku day weliga isku day suubi habar fadhida Allah ila gidin la fud iska dhaafa hadalka badan waya marka waxaan kala intusayaa odaga dagaal ku jiray qaybtii hore waa xasiliyay
marka wuxuu usoo jeestay qaybtii meeshaan intaan dagaal culus uu ku qaaday uu xasiliyey marka waxay tusayaa qaybta dhakada meeshaan dhakada maartay ayaa tusayaa meeshaas mujeedaa ayaa dagaalka hadan u wareejiyay okay halkaas hadda u jeedaan sawirkaas meeshaas ay u banaan tahay sidee u banaan tahay shaki ma kaga jir laakiin inta wala dagaalay meeshii dagaal ku qaaday uu soo abuuray oo taqaanaa uu soo buuxiyay ma sha Allah wuu dadaalay laakiin wuxuu dhahay gadaal ayaa haddana culays saaraya gadaal hadda u jeedaan sida ay tahay horeyna u jeedaan isbedel inuu ku suubiyay waaya marka sawirkan dagaal ayuu ku jiray ninkan hal meel horta uu soo xasiliyay macnaha wuxuu dhahay laba meel dagaal ma wada qaadi karo ayuu dhahay waa asaga fikradu adeegsada waay fikradu adeegsada waxay ahayd inuu horta hal meel uu la dagaalo sababta wuxuu dhahay laba cadow ha isku furin hal meel la dagaalan kadib haddii kuwan kale soo waalaan dagaal ku qaad okay marka hadda wuxuu suubiyay qaybtii hore ayuu si fiican isaga soo xiray oo mataqaanaa uu mataqaanaa adigu soo moosay macnaha meeshii wuxuu suubiyay shub adag uu soo dhisay si mataqaanaa haddana gadaal uga soo dhiso waayahay aan u wareegno marka haddana sawirka xiga muxuu noqon doonaa maxaad fili doontaa adigaan ku su'aalay waxaad filaysid bal mii sheegi kartaa okay maxaa ujeedaa marka hadda sawirkan xigo akhyaaray run ahaantii aad dareemi kartaa inuu meeshii hore dagaalkeeda buuxiyay qaybtii galana uu soo daboolay laakiin dabool ah macnaha bilow fiican ayuu suubiyay bilow aad u fiican macnaha horumar la taaban karo ayuu suubiyay horumar la taaban kara ayuu ka suubiyay qaybtii oo dhan ma sha Allah walaalkeen waxaan leeyahay waa libaax oo macnaha bilawsho wuxuu ku bilawday gadaashii aad arkaysin dhalaalisay uu soo daboolayaa wuxuu ka dhigayaa macnaha heer ay mataqaanaa ka baxdo reflectionkii dhalaalkii wixii dhan ay ka baxdo oo ah inuu soo wareega qayb ku dara qayb macnaha dhameystir ay u socdaa macnaha guriga qabyadii ayuu dhameystirooyaa insha Allah qabyadii ayuu dhameystirooyaa waayahay ma sha Allah ayaan leenahay walaalkeen waa kana okay marka hadda waa ujeedaan sawirkan kale fiiriya hadda fiiriya insha Allah qabyadii wuu wadaa qabyadii si fiican ayuu u wadaa oo wuxuu ku keenay isbedel baaxad leh ayuu ku keenay marka dagaalkan uu ku jiraa aniga hadda ma ujeedaan wiilkan 3 bilood ayuu inta ku keenay intaan waa ma sha Allah qof macnaha shalay sidaan ahaa hadana maanta sidaan ah waa alxamdulillah horumar waay waa horumar adiga waa suubin karta aniga waa suubin karaa insha Allah hadda aniga kulay waxaan wadaa dadaal baa wadaa dadaalka aan wadan waxay tahay kulay dhalinyarta baan u raadinayaa wax hadhow lagu xasilo wax markay timaha la joojiyo ee dib u laabanayo baa intaas waxa waaye waxaan ka dagaalamayaa qorsheyga waa qorshahaas qorshe kalena maaha insha Allah waxaan rabaa wax qofka markuu marsado ay u soo baxdo kadib uu ka joogsado dhibaato aan soo keenay timihiisa mataqaana u joogaan alxamdulillah taasna hadda qorsheeda waay aan raadinayo waayahay marka hadda sawirkan kale fiiriyo saaxiibka meeshii foodii ebarkeeda waa soo buuxiyay ma sha Allah quruxu ka soo dhigay deenin wuxuu iska dhigoyaa food leh wuuna yahay iskama dhigaayo sorry iskama dhigaayo laakiin walaa timiisana ma sha Allah waay timiisa ma sha Allah waay Allah u barakeeyaan leenahay waa uu dadaalay qofka hadduu dadaalna miraheedu wuu guranayaa marka waxaan leenahay walaalkeen Allah ku barakeeyo maadaama aad meeshaas ka imaaday meeshaan aad imaaday waxay tahay waa wax ku deesho mudan run ahaantii wax ku deesho mudan waay dhalinyarta walaalaheen waxaa mar walba idin sheegaa inaad dadaashid ku deeshada iyo waxaan natiijooyinkan soo bandhigayna qurux maaha waxaan raadinayna waxay tahay war adiga meeshaas qof walba dee cabrow jawaas oga qof walba madaxiisa uu yaqaan qof walba bili aadankan waa isku wada dhawin anaad fiir sidaan hadda ninka uu go'aysay dhaxdaan dhan waa go'day intaana qayb yes maxna qofka markii go'do in soo xiraa dadaal suubiya okay insha Allah kulay dadaalka waa heli doontaan bin ilaahi karim hadii xabadan aan wax ka waayo plan B ayaan ku dhaqaaqay plan B diyaar ayuu yahay waan ogtiin insha Allah plan B gaas diyaar ayuu yahay taasna waxa waaye waa kumintada insha Allah ilaa 4 bil ayaan kumintada doonaa taas waa qorshaha ii degsan ilaa 4 bil inaan kumintado markaas ayaa rabaa insha Allah inaan de natiijo qurux badan aan ka keeno oo dagaal culusna aan ku qaado waayahay marka hadda walaalkeen wuu ku mahadsan yahay dadaalku noo dadaalay iyo wax qabadku uu na tusay aniga marka waxaan arko dhiiga ay ka anfaan sababta dhalinyaro badan waxa jirto oo su'aalo maala yaani raadiso war ha raadinin walaalkeen ma sha Allah wuu dadaal adigna dadaal fadlan waxa suubisa dadaal horumar leh ha iska fadhiisanin sida waxaan ma aqaantay waxaan qiyaaray
intaas ka badan wax ma dhihi kare kulley waxaan jeclaan lahaa dhalinyarta haddii aysan suubsan karin in markaas oo dee u tagaan dad kale ay dhahaan walaalayaalow madaxa noo xoqa baasha noo mariya waxaasoo dhan dee inaa qof u tagtay noqonaysaa markaas lama rabo dee waxaas lama rabo marka fadlan waxaan idinka codsanayaa dhalinyartiin dhammaantiin aan idinka baryaa inaad dadaashaan inaad fadhiga kacdaan inaad horumar la taaban karin inaad suubisan haddaad tiraad iska fadhiiso waxna ha qabanin ma soconayso walaalayaalow fadlan waa idin baryayaa dadaalkaaga dadaal ku dar ilaahay wuu garab qabanaa adiga laakiinse wax la imow haddaa laakiin iska fadhidid oo aad tiraadid wax walba ilaahay ay qabanaa ilaahay wuu ku caawinaya laakiin adiga waxaa ficilkii la imow marka insha allah waqtiga aad ku xisaabtamaysid ficil ku dar waqtiga kaliya la maro haddaad tiraad maanta beri dambe shan beri aad ku xisaabto shanta beri aad waxba qabanin de wax ma soo kordhin wixii waa fadhidaa laakiin shantii beri waa gaaraysaa haddaad nooshahay waa gaaraysaa shantii beri ama 10kii beri aad qabsatay waa gaaraysaa laakiin haddaad ficil la imaanin de wax isma bedelayaan waxna ma soo kordhayaan ma fahantay marka insha allah bidnillahi karim dhalinyaro inaad dadaashaan allah idinku duwo inaad kor isku soo qaadaan allah idinku duwo marka aniga kulley wax kale idinkugula talinaya male taladeeda ugu fiicanna waxay tahay inaad horumar fiican gaartaan ilaahay ha idin garab qabto baashaan waxay leedahay maanta haddaad wax iga heshidba nasiibaa leedahay waxay leedahay shalan dhammaadin fahanta waa tijaabin fahanta oh yes wax badanaa kasoo daatay war wax badanaa kasoo daatay aan baash soo qaadi karin wax aad u badanaa kasoo daatay waya marka waxaas badan wallahi maasha allah wax badanaa kasoo daatay laakiin way dhamaatay loo laaban maayo tan mar dambe way dhamaatay laakiin waxaa kasoo daatay wax laba mar la marsan lahaa kasoo daatay sababta baashaan qabanin maxaa la dhahay birtay wadato tubadan ma qabanayso laakiin waxaa kasoo daatay run ahaantii alaabteena ceradan waa wadaa insha allah iyadana waxaa hartay 2 bilood hartay 2 bilood kadib ayay jawaabteeda soo bixi doontaa insha allah 2 bilood kadib ayay jawaabteeda soo bixi doontaa markaas ayaan dhihi karnaa waxtarkeeda iyo faa'iidadeeda insha allah ayaan si fiican uga hadlayaa inta ka horeysana waxa waaye dee wax laga hadli kara maaha hore sheegay naga gashaaniya waayahay khiyaarta insha allah waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu maalinta idin wacnaato